kalka furan kalgacaltooyada iyo kalsoonida ay nagu kulmisay Kismaayo Kaafiso kun iyo kow jeer ayaan ka mahad celinaynaa madaxweyne Axmed iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland waxaa mudantihiin ammaan iyo sharaf sida goobannimada leh oo aad u soo dhaweyseen boqolaalka qofood ee halkan isugu yimid inkastoo halkan laga akhriyay warmurtiyeed xambaarsan aragtida aan qabnay waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka halkan fadhiyo in yar u iftiimiyo sababta dhalisay shirweynaha la isugu yimid Kismaayo waxaa la isugu yimid in la aaminsan yahay xaaladda dalka ay ku jirto halis adag dastuurkii Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay oo ahaa heshiis bulsho caawa lama garanayo meesha uu ku dambeeyay afar cutubna meel ayay ku agoontooday 11 cutubna meel ayay ku go'doonsan tahay ummadda Soomaaliyeed caawa lama garanayo sharciga ay ku dhaqanto sidaas daraaddeed ayay khasab tahay in la isku dayo in ummadda midnimadeeda la ilaaliyo labo dhaqaalihii waddanka oo khatar ku jira sidee loo qiyaasaa in dhaqaalihii khatar ku jiro ganacsiga Soomaaliyeed maanta haddii la qiyaaso sanadkii la soo dhaafay cid walba oo ganacsata faa'iidadeedii hoos ayay u dhacday waxay sababtay shaqo la'aan baahsan waxay sababtay awooddii iibsiga shacabka Soomaaliyeed oo hoos u dhacday waxay sababtay in ganacsatadii Soomaaliyeed ay dalka isaga cararaan waxay sababtay in adduunyadii nala ganacsan lahaydna maadaama ganacsatadeenna ay dalka ka cararayso iyaguna ay laba tallaabo gadaal u qaadaan intaas oo jirta ayaa haddana dawladda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa inay canshuurta ugu badan saarto shacabka magaalada Muqdisho oo dekedana lagu canshuuro isla canshuurtina dekeda banaankeeda looga qaado waxaa soo caqabada oo jira ayaa ummadda Soomaaliyeed nasiib darro waxay wajahayaan xaalad adag oo abaar ah 4 milyan iyo 400 kun oo Soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya xaaladda abaaraha oo u baahan in loo gurmado taasoo sii dhibaateyn doonta dhaqaalaha dalka dadkeena halkan isugu yimid sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan fariin halkan ka diro ganacsato odayaal madax iyo shacabba in loo gurmado dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan ciidamadii nabad ilaalinta ee dalka joogay waxaa loo leeyahay dhaqaale 2025 oo hadda sii dhamaanaysa maadaama dhaqaalihii loo leeyahay 2025 way ka sii daraysaa 2026 idinkoo fahamsan xaaladda amni ee dalkani uu ku jiro intaas waxaa sii dheer dhaqankii dunida ee diblomaasiyadda oo isbedelay dhaqaalihii dibadda ka imaan jiray oo hoos u dhacay adduunyadii oo bilowday in dalba dalku ka xoog weyn yahay siduu rabo ula dhaqmo dal walibana uu danihiisa ilaashado intaas oo dalka Soomaaliya ka jirta ayaa haddana muddo xileedkii madaxweynaha iyo kii baarlamaanka labadiisa aqal uu gabaabsi yahay ay ka dhiman tahay 4 bilood iyadoo ay 4 bilood ka dhiman tahay ayaanay haddana madaxda dalka joogta aragti ka lahayn dalku maanta meesha uu ka aadi lahaa intaas ayaa isu keentay dadka Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid iyagoo u damqaaya dalkan godka ku sii dhacaya in laga badbaadiyo godkaas sidaas daraaddeed ayaan madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynuhu
halkan waxaan isugu nimid wixii adiga ku keeni jiray halkan waxaan ka diraynaa fariinta adigu aad diri jirtay halkan oo ah xayndaab Soomaaliyeed waxaan ka diraynaa fariinta ahayd waa khasab 4 sanaba mar dalkan inay doorasho ka dhacdo waa khasab in doorasho heshiis lagu yahay ay dalkan ka dhacdo waxaan leenahay marka hal dariiq ayaa madaxweynuhu ku furan talada dhulka iska dhig aqbal dadka Soomaaliyeed inay isu yimaadaan khatarta dalkan ku gadaaman aan ka badbaadino adiga kaliya taladu kaama go'do waqtigaadina waa gabaawsi ee waxaan ku leenahay madaxweynuhu annagaa kula soo shaqayn jirnay annagaa saaxiibo kula ah annagaa ku garanayna waxaan halkan isugu nimid inaan gacanta ka qabanno kulana talino waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu